بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan shir jira ugu qabanaynaa anagoo xildhibaanada matalo heer federaal ee matalo walaashan Ikraan Tahliil Faarax baarlamaanka Soomaaliya ku matalo sida hore loo sheegay Ikraan waxaa matala Soomaaliya dhan matashay Soomaaliya dhan u dhidhisay laakiin waxaan nahay si gaar ah dadkii ayada u matalaanahay baarlamaanka Soomaaliya ku matalayay waxaan halkan ku fadhinaa intii xildhibaano ahaynoo dhan aan ku fadhinaa qadiyada Ikraan muddo dheer soo socotay walaashan Allah u naxariisto sanad ka hor dhibkaas ku dhacay shalay waxaa soo kiciyay waraysigii uu bixiyay agaasimihii hore hay'adda NISA waraysigaas waa dhageystay aniga gaar ahaan waraysigaas waxaa run ka ahay inuu taliyaha ka maqnaa waddanka Soomaaliya laakiin inta kale la sheegay ani waxaan u arkaa inay tahay wax aanan run aheenin oo xaqa ka fog sidaas si la mid ah waxaan aniga aad iyo aad u cambaareynaa si gaar u cambaareynaa intii kale waxaa ka hadlay walaalayga halkan fadhi xildhibaanada ah laakiin waxaan aad u cambaareynaayaa xiriiraalyaha ciidamada qalabka sida generaal Kamey oo ahaa nin aad iyo aad u fiican oo markuu ka hadlaayo ama uu soo dacweynayo dacwo ku oogaayo nimanka nabaddiidka ah aad iyo aad aan aad ula dhacsanaay laakiin qadiyadaas oo Ilaahay dhinac marsiiyay waxaan leenahay walaalo mar walba waxa waaye toobad maftuuxa way furantahay wax walba furan yihiin waxaan leenahay inaad arintan dib ugu laabato oo aad mar kale baaritaan sax ah lagu sameeyo oo waxa waaye waa kaas simbiraxati waayo waxaa noqotay xiraalihii ugu horreeyay oo qaadi isku bedelay taariikhda Soomaaliya ma jirto anaga dad wax bartaan nahay dad la marin hawaabay kara ma nihin waxaan ka rabnaa taliye adiga iyo inta kulamada maxkamadda joogto oo taliyaha ciidamada qalabka sida ugu sareeya iyo taliye xigeenada iyo dhammaan waxaan ka codsanaynaa arrinkaas arrin si sax ah loo baaray ma aha waxaan rajaynayaa in hadda agaasimaha cusub ee hay'adda tagayna oo wax badan kulay shaqo fiican ay socoto kulay waxaan dareemaynaa waraysidan tirada badan loo xakeeno taas keeni karto in uu taliyaha oo hadda shaqo wado tan kale waxaan u mahadcelinayaa ani gaar ahaan aan aad ugu mahadcelinayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooblo qadiyadan waxay ahaan lahayd qadiyadihii dalka ka dhacay iyo dadkii Soomaaliyeed gabadhfalada loo geystay ay la mid ahaan lahayd laakiin tan waxay ugu gudisnaatay Ra'iisul Wasaaraha si sax ugu qumay saaxiibiisa isku waayeen oo wax badan u sameeyay oo maxay ahayd aan la socon xaaladihii ku dhacay iyo cunaqabayteennadii dhammaan waxa ku dhacay waxaan leenahay Ra'iisul Wasaare waa mahadsan tahay insha Allah hadii abaalka u gashay Soomaalida iyo abaalka u gashay beeshan ay ka dhalatay Ikraan Tahliil iyo Soomaalida u gasheen insha Allah lagu iloobi doono insha Allah waxaad noogu qornaan doontaa baal dahab ah waana ku mahadsan tahay ma la ishkuro naasa la ishkuro laan kuleenahay insha Allah hadee waxa waa inaan ku mahad celino mudan tahay jazakallahu khairan adiga inta kula midka ah oo quntay oo ugu horeysay walaasheen xildhibaanad Aamin Maxaa Cabdi Allah u naxariisto oo arrintan door fiican ku leed iyo maama Qaali Maxamuud Guhaad oo aniga si gaari waalidii uga Ilaahay waxa waaye insha Allah arrintan xaqa waxa moodaa arrintan arrin Ilaahay wata waaye kullama mar kasta ay mugdi gasho ilaah soo saara meel iftiin u soo saarayo waxaan leenahay insha Allah maray waxay noqon doontaa arrinta Ikraan si sax ah oo banaan cid leh oo waxaan rajaynaynaa sidii loo sameeyay walaalkeen Cabdixakiin gudoomiye degmada Hodan arrintiisoo kale si fagaare ah oo maxkamadda loo qaaday oo familkeedii eedeysanayaashii meesha la sugu yimid la wada doodo oo xukun live ah oo telefishinada iyo meel walba ka baxa inaan noqotaan rajaynayna xukunkeeda la qaado taasaan ku haweenahay insha Allah annagana intee naf nagu jirto aan taaganahay kama hari doono arrintaas meel alla meeshii rabtaana la gaarto xaalad walba waqti walba ha gaarto insha Allah hadii annaga noogu sinto dawladda hadda aan joogno ay noqoto iyo dawlad ka sii dambeysay marxalad walba ay tagto insha Allah saasan rajaynayaa waxaan xoojinayaa codkii iga horeeyay oo walaalihii ahay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah oday Soomaaliyeed xogogaal u ah wadankan iyo xaaladihiisii iyo qadiyadanba asagoo banaan joog ah xogogaal u ahay hadeertaan maanta Ilaahay ugu sameeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa inuu saaro dad khubaro ah oo dhaxdhaxaad ah oo arrintaas anaga wax kale ka doonayna ma laha anaga dhibanayaal waxaan ka doonaynaa waxay tahay inaan cadaalad helnaa waxaan anagana farxad gelinayo oo wax walba dad walba farxad gelina waxay tahay in cadaalad la helaa cadaaladana deeqdo cadaaladda ummadda Soomaaliyeed deeqdo insha Allah kulay waxaan nahay dad cadaaladda ka sugaya insha Allah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya insha Allah madaxweynahana insha Allah hadee kulay codkeen waa dhageysan doonaa insha Allah annagana insha Allah madaxweynaha arrintaas ugu tagi doonaa waxaan leenahay dadka aan matalno insha Allah qadiyadaas xildhibaanada u qumeen
insha allah wayna u kaceen insha allah arrintaasna waa ka dhidhin doonaan waana ka shaqayn doonaan waa mahadsantihiin Soomaali Maxamed jazakallahu khairan shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada $1 waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha